gaar ahaan 30 sanadood ee ugu dambeeyay oo taniyo intii ka dambeysay dagaalkii ugu weynaa oo ka dhacay geeska Afrika oo 77 ama 77 aynu u baxinay iyo waxyaabihii sababay waxa sharaf noo ah in aan studiyaha maanta raad telefishinka caalamiga ah la yiraahdo aan ku soo dhaweeyo Colonel Yusuf Maxamed Cabdi Barre oo Yusuf Dheere ku magac dheer oo isagu kamid ah ragii horseedka ama asaaska u ahaa ciidamada aad baqasheen ee jabhada Soomaali galbeed xoreynteeda iyagu u qoriga qaatay oo hawshaasi uu qayb weyn ka soo qaato oo ka galay Yusuf waxa uu ku dhashay gobolka la yiraahdo Dhanaan Burqayr gaar ahaan degmada la yiraahdo dalka Itoobiya imika lagu sheego ayaa ay ku taalay waxa uu yimi Hargeysa lixdameeyada horaanteedii oo uu ku bartay malcaamadii ilaa iyo dugsiga hoose kadibna waxa uu tagay magaalada Sheekh oo waxbarasho u tagay muddo kadib waxa uu ambabaxay wadanka Suuriya oo halkaasi uu kaga biiray ururo xagga jabhadaha ka soo jeeday markii dambana wuxuu galay kulliyad ciidamadu ay leeyihiin oo ku taala wadanka Suuriya si uu markaa ugu weersamaysto dagaal uu ku ballan qaaday in uu ku xoreeyo dhulka Soomaali galbeed Yusuf marka ugu horeysa ku soo dhawow studiyaha telefishinka su'aashaan ku weydiinay waxa weeye maxaa taariikhdaada nolosha hore inta aan sheegay ka sakow ka sheegi kartaa ma aad ku dari kartaa بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحاولتم هذا علينا يا مركو الرئيسة تي في قنرات iyo bahda barnaamijka hogaaminaysa waxaan aad ugu sii mahadinayaa channelka ay siiyeen maanta in aan maaragtay kaga hadlo macluumaadkaas oo aad u waafi ah oon filayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo xitaa qaar dagaalkii ku jiray ka maqan qaarkood waayo dagaalku wuxuu ahaa wax sidii doontii kacaanka loolaysa fiican kolba nina meel kaga deeyo inuu raacaa doon socoto waxay nimba meel kaga soo biiray waat sidaad u sheegtay waxa weeye waxaan ku dhashay degmada hadda degmo ma aha waa heer tuule waay Burqayr baa leeyahay degmada Dhanaan gobol ma aha gobolka Goday bay ka tirsan tahay inkastoo Goday ka daaweynta Dhanaan anoo yar baan markaa Hargeysa ime madrasadii waxaan ka bilaabay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Ibrahim Baraawe kadibna military elementary school leeyahay oo qurac dheer ku yaalay ayaad gashay oo ururka Birjaax la oran jiray meeshiisi halkaas interestki ka baxay markii hore sena Gabiley baan tagay oo intermediate boarding kana waxaan soo bedelay Sheekh kadibna iskuulka xabadu keentay la oran jiray Iskandariga ahaa intaan Faarax Umar la dhisay laga soo dhisay adoo waxbarashadii markaa waqooyi aan dhameystay waatii waxaan aaday حاجة هي سوريا وحا شبهدا حفيظ أي لهيد وماشى فيها لي ولو كل كانت شبهدا حفيظ كجبهة تحرير الصومال الغرب المحتل حرينة الصومال قلبين حق حبشيده دولك حبشيده جميسته شبهدا حرينة دولك حبشيده جميسته يا صومالية كدب ماشي بان waxbarasho taxdiiri ah oo si loo waafajiyo kulliyada aan galahayo iyo aqoonta loo baahan manhajka Suuriya iyo meeshaas ilaa iyo 8 bilood ku qaadatay waadu ay u taragaleen marka waa ilaa 700 meelaha weeyaan qiyaastii waxay ahayd awaakhirkii 19 baa
marka kadib kulliyadda waxaan galay September marka dee la furo jaamacadaha iyo September baan galay 69 كلية حافظ الأسد بالله سو ماها ما كلية سو تي كلا دق وحقوق برنسين ما وميلتري أكاديمية عادية منك سوريا واي كلية حربية ليلة هذا واي كلية دقالك مركا كدب كلية مركا لما يني أنا doonayna inaan qolo kolkaas nin la oran jiray Sheekh Xuseen Surra oo reebaali ahaa ayaa jabhadda markaas madax u ahaa jabhadda taxriir Soomaal Gharbi way nin taagtiga badan buu hayo doonayay inuu ka soo goosto way halka waxa ciidamo badan oo waxaa jiray xarbi cusaabaadka la baray sida loo dagaalamo oo Suuriya iyo Ciraaq iyo kaga barbaray way marka in ciidanka aan hogaaminay ahayd way meelaha noomaan islaamka ee u dhaxaysa idina xukuumine u dhaxaysa Bulaxaar iyo Saylac inaan ka gallo marka ciidanka horaan galay ninka imika Sheekh Jaare la yiraahdo orama islaamiga hogaamiye ayaa madax u noqday oo kaxay ayaa ciidankaas doon buuxda oo hub iyo waxaas ay sii bixiyay inta anagu kariimada ku jiray halkaas oo markaas waxay dhameysteen tababarka dowladda maqaawir kamandoosnimada iyo xarbul cusaabaadka oo Suuriya iyo Ciraaq iyo al-Fath ayaa isugu tagay oo ururka Falastiin oo qolada Maxamed Cali ku daray kolka Maxamed Cali oo qolada raacay waad Allahu naxariistay way qoladaas inay naga soo warbaxay kolka anagu dhamaysanay inaan halka ka galahay way qoladii waati marka lagu qabtay doontii waa la qabtay way Soomaaliya qabatay waa kuwii lagu xiray meesha iyagoo cid alle cid ay yihiin la garan la'yahay kadib noo talku waa cadahay Umar Carto oo wasiir khaarijiye ay yimid ayaa idii ku yimid Suuriya loogu yimid way kadib waxaan ku wada hadalay bal in aan dhulkii nimaano way sidaas aan dhulkii ugu soo noqonay waxa gabadhii xogeyntu ahaan jirtay Maxamed Siyaad gabadhaas marka Maxamed Siyaad idin way nafsi wanaag Umar Carto la taagama marka ugu nimid marka waa adigiyo marka waa keligay way nina hadda dhintay oo la oran jiray Corneel ahaa oo la oran jiray Umar Cabdalla Cigaal ayaa labadiina marka soo wada baxay akaadamiyada way saddex kale la wehelisay oo qolyihii ba adigu khilaaf meesha ka yara dhacay way kolkii kacaan ku dhashay ayaa waxay damceen jabhadii NFD tii Djibouti tii Soomaali galbeed in inta la baabi'iyo loo bixiyo wax la yiraahdo Jabhah al-Mutaxida على أي حال محمد كذا كان دميسي ما قرنسا تيمي حمر عمر عرفت حاجة يدي كويمي تبينا مركز حمر تمادين ميليتري قد كشين سو ما هو ميليتري قالوا قلي هذا كنت عن أويجا وضح هذا الله يعني اللي أنا وما وحبان ويديي وسنو سؤالي كدي waxaan doonayaa kolkaan adu qadiyada maxaad ka qabtaayeen marka runtii wuxuu ugu jawaabay inta gaar ahaan Soomaali galbeed maqan tahay ninka anaga ah soo haysta uu yiri inuu xor yahay lees ma naga mid ma habu way hadii Soomaali galbeed iska badaayay uu jamhuuriyadda aan joogno waxaan anagu wadan walba production ku faanaa petrol iyo wax kale industry ma lihin buu wax xoolo nool xoolaha nool ee dadka jimilada sheeganaya wax xuduud ka sugaya daaqamada buu subag iyo xoolaha dhoofin oo lacag ka yimaado marka karaaba taagnaanin markaas aan hadda runta tahay ana inaan xoolaha ibada maxaa ugu caawin markaas inuu soo baa tahay adigu markaas ninkii ahdi baan dhiganay wuxuu yiri wadanku iga waramay inuu meel cidla wadankani joogay in
soo deyn lagu leeyahay oo meel raf ay ka soo qaadeen in markaa bal horta aan isaga dhisno xagga xoogga iyo waxa kolkaan dhisno kadib aad xarbul cusaabaad aad bilowdaan afrikana aan tol ku yeelano waayo wuxuu yidhi wax macquul aada buu kolkii uu ku hadlay wuu ku qarxiyay wuxuu yidhi maada qadiyadan afrika tol ugu ma waxa tol aan carab ahayn uma lihin buu qadiyadan afrika xil salaasa inaga influence weyn buu yidhi marka horta afrika tol ku yeelana buu yidhi waa kii Umar Carte marka West Africa maalin aad u wareegi jiray in horta bal afrika la dhaciyo in maartay qadiyad iyo dal iyo dad naga maqan yahay inta markaas ururka dhalinyarada oo markii intaan tagin aan aasaasay ururka dhalinyarada Soomaali galbeed oo si fiican wadanka gudihiisa uga hirgalay iyo wixii nina ururkaan si wata buu yiri kana asla si dhismo bal horta inta ila sii xoojiyo oo nagala si shaqeeyo muddo qababa in marka 75 ka buu ilaa 75 ka ciidamada gal markaa ka bacdi baynu waxa ka wada hadlaynaa markaas 75 ka ciidankan oo inoo xoogaystay Afrika oo tol ku yeelanay kol ilaa maqraatay in dalad naga maqan yahay marka labaadna aan oo ayuuda ma ka weydiisano inaynu wisiina ogahay buu laakiin waxaan helay buu yiri Afrika oo maqraatay noo ah haddana maqraatay nooga noqotay inaan nabad ku doonay oo ku weynay kadib United Nationska lagu siin mahayana waan ogahay taana in akhrido kolkaas xabl asaabaadkina bilaaba kolkaas dagaalkaagu saxiix marka boqolkiiba 60 aad maartay naafisaan ciidankana xoog laan ku dharbaaxno marka fartaan taagtay waxaan irjaal madaxweyne horta inta kale oo ku waafaqsanahay laakiin horta anaga waxaan noo fiican maahay qoriga frontka adar lagu la jiro intaan kolba qolo arbeedya ya la ku dheeray oran lahayn oo rasaasna siiya da stoorkiina naga soo dadaan waa wax anaga noo fiican laakiin bilay sabataaj ku noqota qadiyada oo wixii dawladda dagaalama noqota oo la yiraahdo dadkii Soomaali galbeed ma dagaalamayaan dawladda dagaalanaysa oo qadiyada markaas ay qaribata inay sheekadii fool xumayso markaad wada hadlaysaa 70 markaa maya waa 12 abril weeye waa 14 abril bay ahayd waa markuu u bixi doono socdaalka Suuriya iyo Kooriya mari doono marka adigu muddadii aan qabsanay 25 bay noqotay sidii baan horta agreement-kaas aan ku galay dawladda militariga gashay waxa kale oo iga diiday inaan maartay u dirsano rag badan baa naloo ogolaa oo maartay xabl cusaabaadka iyo waxbarasho iyo kulliyada ka soo baxday u dirtaan Suuriya Ciraaqi aan u dirno uu diiday wuxuu xagan Kooriya yaan u dirtayna qoliyo markaas ciidamadii 63 ka sii haray oo Kooriya wax lagu soo baray oo waxana ciidanka u weeshay waxana maartay meelaha karash baraan gaab jooga kuwii baan isku urursaday kuwii baan influence gareynay si ayna maartay marka muddadii kolkii la gaaray inta muddada la gaarin waxaad ogolaatay marka inaad ciidanka militariga Soomaalida ka mid noqoto inaa ka sii ma noqdo for a time period xidig la lagu qaatay marka xiddigta waan watay kolka xiddig la Suuriya ah oo 3 bilood mushaarkeeda soo qaatay way doonayeen xiddig la Soomaaliya ma doona xiddig la Suuriya ahayd marka hore horta agreement-kaas ayaad ku soo gashay ayaan ku soo galay 15 markay joogto waxaan abuurnay duruuftii khasbi lahayd midaas Ethiopia waxa ka dhacay duruuf kale iyana ka dhacday حيل سلاسل أفكندي ما هرتا لما قاعد كلها ما كلها لما تضبط كي وين مركا حيل سلاسل ردي يا زوما ما أفريقيا وشركة أفريقيا كلكم إيمانية و كذب وكذب أفريقيا أواخر كيسي وهي مركا مظاهرات كي بحث سمعنا يعني كذب قليه هي أتكسر تاجين ماشي حيان أوركد اللي يرضى وسوح وجيستي وكيل حيرد اللي يردي ظروف وارتها مكاسة اللي وتنبل الله هيد اللي يردي أورك أتري سي وطنا وأكثر والله حيري قليه كوريا وديره شقدي وماشي يشوف له يشتري الموت هاي في بال
وايا حريه ورقه markaas uu qoray oo yiri bal horta inta xaree barnaamijkooda markaa wuxuu ahaa inta kuuriya ka soo baxday intaan tababaro yaani qowda maqashi waxaan haw qaban arrin ah in aan gudihii geelno oo gudihi ay wax ku tababartaan oo long term wixii arrimahaas la xiriira waxaad kala xiriiraysaa leeyahay galaal markaa ku arsal la saru aha kolka uu noqon doona oo hogaanka saxanka markaa madaxu ah galaal baa xeradii u horeysay ila soo sahmiyay oo meeshan warsheekh ahayd aanu bixiyay qorilow ciidankan dufaan aanu kolkii xaggan koonfurta Ahmed Sheekh kolka dambe maaragtay aanu codsanay in loo diro markaan ciidankii tabarku u dhameeyay ayaa hadana 75 waa 75 waa kii gabayga igu jirtay taasi maxaa tiri maxaad ka xasuusta ma kolka aan صدمkay bishii June in 3 iyo 7 sanadona shan bay saayid ka ahayd 30 dharaartuna ahayd ninkan garane masan biiro waxa eebaha saatirkii wade markuu suura gelin xaaja way ku siqirantahay sakaarka xaqan laga guntaday waa tiraad baxay lagu kala sulciyo roon shaqada sadiya liibaane suubano rasuulka iyo sayidka in yaale sareediyo ayaa noqday dabkan saaniga u shiday asaaskii horeeyay horta halkaas ka bilaabay watakii war sheekh baad ka samaysay ciidankii ugu horeeyay galaal baa kula xareeyay oo hogaanka sahanka u qaybsanaa markuu ila soo sahmiyay wixii aan uga baahdo gaashaan dhiga inuu kaaga doonayso ayuu igala soo qabanayay waxa kale oo qoryooley aan ku ururinay ciidan reebaali ah oo qolada Cabdulsaaq u magac leh oo wixii ka kuuri oo yada gooni ay igala diideen isku dhaxqaldo waayo waxay doonayeen waxoogaa yar qaab yar difayd rule qaab gooni ku xare in la kala qaybiyo anaguna taa waa ka hor tagnay way oo wax midaysan baan samaysanay qolyihii baan u dacwooday Sheekh Jaarre ku jiray iyo Maxamed Ali waaga laga xidhnaa iyagana wuxuu ugu ballan qaaday inuu u soo daayay oo Maxamed Ali markaa odaygii way wada xidhnayeen waxa soo dhan way wada xidhnaayeen doonidii baa lagu haysiyo hubkii ma garanaysaa lagu qabtay marka afiskii 75 October ya lagu soo raaciyay laakiin intoodii badnayd way iska tageen ilaa 5 nin oo Maxamed Ali ku jira ku soo haray Maxamed Ali waliba yiri anigu meeshii anoo yar baan maaragtay adama ku soo qorayo barkii dabala carab dawladda waxa haysanin ma joogi karo markaasaan aniga mustaqbalkaaga ugu hadlay oo saataan ku joojiyay iyo nin محمد عبد شعالي شعيسى ليلى هذا علي جرسه كما على جرسه جبد جرسه waxa lagu yiri gaalmada saddex weeye oo imika Mareykanka jooga iyo nin Ahmed Diqal la oran jiray iyo Tuuji adigu dhibka shannan ninka la yiraahdo Sheekh Jaarana uu sii galay isagu guduhu sii galay ala kulli xaal kolkan ciidanka tababarkii u dhameeyay oo 3 urur aan u kala dhisnay iyagana aan soo dhisnay ciidankii baalina sidiisa aan organize gareynay walaasheed Xuseen la oran jiray oo in dariiqa iyo meesha ku haystayna ciidankii Shimbiro loo yaqaanana meeshan Bakool ku abaabulay way wali xariisan yihiin oo ama bixinin baan hadana waqooyi aaday ciidankii ugu laxaadka badnaa ee Axmed Guri aan u bixinay iyada abuurta hadana agabar iyada asaastay agabar baad ka samaysay xaradii ugu agabar marka ka sameeyay Jalaal Silxaan baa ii diiday wuxuu yiri baxar janno meeshu shaqmada raagu bixiyay qabri baxarta u bixiyay baxar janno meeshaas aan degnay oo biyaha goolka reedis oo dhan ay ku soo daacaan waakii habeenkii u horeysay roobku daay daadku xeradii oo dhan baqaaday halkaana ciidamad ka samaysay bahal abees inuu ku soo baxday dhulkii marka waan soo lugeysay xoog baan hadaan aga bartii aan dhistay kolkooda ay ku soo deshiyay ciidankaas oo practically aan hogaamiye go'd u ah laakiin waxay ahayd marka waxa inta
reliable money transfer service for the whole community. Fast, excellent rates, online transfer to anywhere in the world. So, for that fast experience, visit us at www.dahabshield.com or contact us on our free telephone number 0800 6120 337, landline 0207 375 110. Dahab Shield, making money transfer easy. kulanti wanaagsan ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkan raadraaca taariikhda oo aanu kaga hadlaynay jabhadda xoreynta Soomaali galbeed WSLF iyo dagaaladii ay bilowday 1976 ilaa iyo intii ka dambeysay. qaybtii koowaad intii ni daawatay waxa aanu ku wareysanay oo marti noogu ahaa raggii horseedka ka ahaa ama aasaaska u lahaa ciidankaasi ay jabhadu lahayd waxa weeyaan Colonel Yusuf Maxamed Cabdi Barre oo Yusuf Dheere ku magac dheer. waxay inoo taagnay qaybtaasi hore iyada oo isaga la fahantiisu isagoo markaa kabtan ahaa uu raacay ciidankii Axmed Gurey loo oran jiray oo kamid ahaa ciidamadii ay tababarka siiyeen oo la geeyay aaga oo dagaalkii ugu baanaa uu markiiba ka hor yimi hase yeeshee ay ka guuleysteen guutadii ama ciidankii ugu adkaa ee Ethiopia ay lahayd oo markaa jigjiga ka soo weeraray iyaga la fahantoodana ka sii war helay in halkaasi la dhigayo. qaybta labaad Yusufow iyo hawshii aynu wadlay maxaa markaa hadana dhacay oo idin hor yimi dagaalka waad ku guuleysateen waxaad ka dhigteen qolad ciidankii Ethiopia ay ku faaneysay markaa halka joogay oo la filayay inuu idin qabto markaa sida loogu talagalay loo eego ama loo tababaray in aad ka guuleysateen oo aanay waxba la noqon. waxaad tidhi waxay taasi gelisay in qolada Soomaalidu ay dhiirato tira war hadii nimankiiba laga adkaaday inta booydin hor joogsata ma jirto idinka la fahanteena ay niyad wanaag idin dhaliso oo sidaahan mar dad ku taangiga iyo madaafiicda sitay ka adkaateen de kuwa kale loo soo qaban maxaa dhacay markaa ka bacdi seed hawshii u sii wadeen waxa dhacay waxaan filayaa horta istaraatiijiyadii militariga adduunka oo dhan waan bedelay qaab tactical jahwareerka aan ku ridnay way ilaa maanta socda in ciidanka waxaan ogaanay meesha aad ka bilowdo dagaalku inuu idin taagnaanaya waxa xuduudina meesha dagaalka dhaco marka waan isku guuray waan sii soconay ilaa hawaas baan sii soconaa anagu way aag walba meesha naga aadano maan iska xidhnaa maba sii doonanayno intaas miiraad ku xidhaan dhulkaan xidhaan kolkii ay ciidanka halkaa ogaadeen yaa waxaa la soo daranay nin la yiraahdo dagaalka geesiga Ethiopia ahaa la oran jiray Girma Colonel Girma way waa ragga kaliya oo saraakiishii sare oo ka soo reebay Mingisti. Colonel Girma wuxuu ahaa ninkii dagaaladii 64 ku magac yeeshay ee geel xareeska intuu balbaleed ka soo bilaabay ilaa yeed ku keenay ee yiri maartay hashiiba qori ku soo furta way sida qoriga ku ururiyay way meel la yiraahdo college waa college wuxuu raacsanaa Alemania college way marka toga daaqato meesha uu ka gooyo wadadan jigjiga iyo har way meelkaas yaani mashruuc beera abo ahaa oo college kaasi leeyahay beeruhu way marka college bay oran jireen what meeshaas ciidamo la xaale oo wax alla wixii in dagaalka Eritrea ku socday dhanbu kaga socday what wax alla wixii ciidan haye aaga joogay oo ninkaas hogaaminayo ayaa college noo soo galay college-ka meesha mashruuca waxa 4 week buu socday dagaalkaas reerihii meesha deganaa oo dhan baa qaxay waa Girme war Girmahana muxuu ahaa waa show la fiisa looga
وأنا كيري وحان أقادي ماشي غيره كتيران ماشي هتكون عايز أنا إفتحله ورهير يهي دميرك وحيل وإثيوبيا أنا عيدي سمارتي يوكو غيره كتير ما صدا جيل سات كيسين وواجو برتماش ويسيتشيدو فيها وش جيل يعني كانوا ما كان علمه ده شو حل واجي جرمه سديد سقال إلى لبعتن وابري أيام أولو بعيد إنه ركبي وكان كل استراتيجية بالله معلوم بقى إذا بعيد خير هي إنه كيف اكتسين هي بأمريكا وهذا مركي وهو رئيس من بقول يا كونتون يادو دكتين كونتون يادو دكتين يعني أو سيدي ال أو كلا لا بس سيدي ال وعلى رئيس يمد في سيفه ولا وركسه وحيه هي أنوك كارد لي وحواطه تانجي وحكوه جامين إياه دحقشة نينكا هدشة أما سوق قبطها معنا كلا بعض أفرت ما كده كنا ما تمشي مركي وجود مثل لواتن ما كده جرمي أنت عن تابع لا يعرف تانجي جيب على وجود حكي وماشي وابعد لها قد شوف كي يلا فهو يتحنن جوجا ساقالاده أنا لها وتنت هذا أبد كده شيء أبد حسوسناني أنت أقول لي بلداء عسكرتي لديه 40 كفوق بالدي لي أفسر كودي وكيل أنا بجرميه وأمر ويناي كربيه وأمر وينا دور إيه أفرتن سكال باكل إمتى ويقول هنا إن السوداني اللي يدهده وكرنيلا ويلاهن أوريجينال السوداني بوها لكن إسكا حمارة هي جرمة تحسنا waxay ku noqotay guushii labaad bay idin noqotay iyagana naqsadii ugu weyneyd waxna joojiya markaas waa la waayay waan sii soconaa kolkii dambe daaqata markaan toga erar la ilaa gudubnay oo baabil herar bidix aan kala simanahay yaa waxa la soo diray 2500 oo nimankii cadwa ka dagaalamay ee Kongo la geeyo hawl soo jirkii hore weeyay oo 2500 oo dameer wadata dameer kaliya loo soo raray oo la yiri balaay la soo gashay yani waa the last waa the patient min 30 jirka yar mar ragaas inay soo baxeen baa ugu dambeysay ilaa ay hadeer meel ninka kama noqonin kuwana idinka la idin tiriya xitaa waaxid kama noqonin arbitration-kooda waraaqahooda iyo liiskooda aan wada haynaaba up to now we're safe waxa kolka dambe waxay ahaayeen maxaysato kolka la soo qoray askar jeel bileys wax la isku dhafay ciidamadii jigjiga waxaan ku leeyahay kolka aan ku leeyahay istiraatiijiyada waan bedelay ciidankii wadaafteen qaar ciidankii kaliya hal command ay qabeen nabal baleeran urka shanaad baa la oran jiray mustaxiil fadhi jiray fidis baan ku leeyahay ilaa ninka hadii la yiraahdo jawhar bay si maraya cadawgi ninka feerfeer jooga oo moraal ma hayo ma ogta خلاص yani waxa degdeg guushan degdeg ah waxa dhaliyay waa qabtaagteeda ku dagaalamayay marka kolkan dhunta u galay ninkii de frontka joogay muxuu ka qaban frontka harba waxa loo saaday sabab loo daba maray war holay in balay dib soo noqday ciidamadaas ragana balbalka nabalbal waxa weeye waa commandos ururka shanaad baa la oran jiray ururka kaliya ee commandos ka lahaayeen buu ahaa kaasina oo mustaxiil fadhi jiray fidis baan ku leeyahay ku cunay fidis oo bisha hal markii ilaa iyo galansaas idinka dhamaanoon mararka qaar kood idinka inta saddex dagaal oo adag bad gasheen intaas sabataaj baa xagga naga haystay waxtaa kula adiga waxaad la haysatay oo amarka ka qaadanaysay oo kula haystay Soomaha ciidankii Jamhuuriyadda oo aad iskaasii wada lahaydeen maya kolka halka marayno oo galaal iyo luuga iyo hubba loo dirdiriyay waadkan hoos ka tuur lahayn oo jaraal saxan la yiraahdo
oo qaybtii jooga markaas oo waxaan jiraanaa de shifar nin walba sarkaal buu shifar kana qaadna way marka amar badan oo ka dhaaf buu siin oo iska dhageysanayay xaaladda marka dagaalkaas ku jirto adaa xukuma amar uma baahna because amarku ninka goobta jooga ma amarku siin karayo way ay xaaladda ku gaadhay soo ma sheegin ma waan tabinayna waan tabinaynay ciidamadii u horeeyay meesha ku soo xareysanay ee 4 kun ahaa waan ilaa 70 nin oo tababaran aan uga nimay waatina laga dhacay cali xiran laga dhigtay way tababar waxaan ka furanay meel jabti la yiraahdo marka dadkiiba tababarsan kale dhulkaad gashay ilaa dhowr iyo 10 kun oo kale aan tababaranay waxaan si fiican uga hubaysanay marka 300 kun ee maxaysatada ahaa inta ciidan warkii ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo dhulka soo galay marka ma jiraan soo galay iyo wax dooba mid ma jiro oo kolka aan kuwaas aan jabinay hubkoodii oo dhan qaar baa qoriyo garaasal aan kala wareegaynay markaasaan meesha tababarka u diraynaa marka weli xabad rasaasa gurmad horeena loo soo diray oo kas buu malayka u soo mariyay wadaadkaasi markaas ay nin xambaan si dhiibay meeshaasoo wuxuu ku daawiyay malayka doonta markaas ay cid aad u dirtay ha doonato asla ayaan bulaha yani siyaasadda kale uu la jeeday way marka waxaan sameynay marka ma waxaad leedahay markii guulihiinii la arkay ee si degdeg ay wixii u bilaabmeen ciidankii dhammaan militariga mesela adigoo kaliya ciidan ka soo raaciyay ay ahayd inay taakula iyo taawidisiyaan ayaa iyaga la fahamtoodu idinku hinaasay oo sabataaj ama jaxaabinidi ku sameeyay aan in yar ajalada dib kugu celiyo soo bixitaankii markii aan ciidanka la soo baxay booliskoodu ma ahayn inay sarkaal raacdo anna si aan dad loo xukumo waxaan u dhisnay iyagaana isu dhisnay inay madax banaanaadaan aniga iyo wixii askar ka soo jeeda waxaan nahay khubarada ruushka oo kale talis guud oo hogaamadiisii leh guddi odayaala iyagaan isu dhisnay marka waan tagay oo alaalihii anoo gacanta ku wada baan idhi askarnimo haddaan ku raacaynin awal baan jabhadan ku raacay maalinkaasuu maxamed siyaad digreeto gobonnimo doon kow maxaa intaas oo dhan lii bedeli waayay keligay baa digreeto gobonnimo doona ilan kolkii horena aniga askar ma ahayn sidaa ku sheegay waxaana gobonnimo doon waxu soo bartay jabhad baan waxu soo bartay yaaka gamadeedi isna jabhad taxriir Soomaali qarbi waa way marka anigu saasaan duruufta khaaska u lahaa jabhadkaasaan ahaa raaqu soo saaray marka uu ku aqbalayo digreetada kaliya ku aqoonsanayna tahay waa jabhada inaan ka tirsan inaan ahay gobonnimo Soomaali galbeed way marka waxaanu ictimaadaynay oo dhan hubkii xabashidan buu ahaa kan qaaxa ka qaadnay baan inta awrtu sidii weeyday aaladii hubka lagu fitay awrtu sidii weeyday wax oo dhan gabayadii baad ka heli haddaad website ka gasho waayo anagu kolkii wax maana qori karin dagaalkeed in gobay Soomaalidu waa oratore inay maaragtay in gabayga lagu wado gabaygaas ay ku ogaadaan markii ay 300 kun maxaysatada amnigiista u soo bixay beeraleyda ahaa waan garanoo 11 meelood iyaga ka soo galay aag anaga soo weerareen laakiin birtoon baa ku qalwanaysa waa dadkii meesha lahaa nin walba isagoo qoriyo galaasale inaan sidin ogaada buu oran waa kane wixii baa ka ogaasanay marka waxa ugu horeysay waxaan helo qoryo laba dhuubada marna loo keenay laakiin markii dagaalka ay soo gali doonaan bay kolkaas waxaan u dirtay Muuse Sheekh Xariir oo golihii ka dhaxa kamid ahaa dowladda Soomaaliya oo ciidan badan oo maxaabiis ah iyo soo qaaday
يا هب يا شن يلا عطنكم حبة دورة تاسع idinka keenay ها موسى وكا ولا بدل هو كان شيء وحلا ما درسوا isagu military baa أنا إذا كشن يلا عطنكم بمركز إذا أنا هو بقول صادرني مركز أنا ما تقانا وهل أمك مال دجال كده ولا صحنا عقي هل بتون مال دجال كده because منك مال دجال وحلا جرى بصدق بقول يلا بعتن ورجع كا إنه هايستو سيف كمويان marka inta ku dhufo sidaas marka ku gasheen dhulkii baad marka kolkaan halka joogno maxaan sidaa ka sheer kolaha isku yeeray maal yiri ma dhawaan ma orda dalbay naga lahaayeen way ina shaas dagaalkii baaqi u horeeyay uu soo diray markaas galaal oo yiri waa kala guurkii that word ruuxa afgaradka way marka hadal baa aniga kolkaas iga dhacay way siniya waan inta asan dagaalkii soo wadnay ma yoolka ugu dambeeyaan taaganahay ma dib uga soo baxa ma mar labaad sii ka soo bilowba because inuu fashil ma gaaray waa maxamed siyaana erey u horeeyaan ka qabsaday buu ahaa inta kale ugu waafaqsanahay ciidanka aan ku dharbaaxayno billow sabataaj ku noqda qadiyada ani itoos waxaad mooday inay aad runtii ay u cadeyd dad badan baa maqlay oo maanta qaarkoodna la joogaan dhan markaas weerarkii goday iyo kan galaalka laftiisa soo hogaaminayay aaga dir dhabo oo kaasi cali xeerataydi aan aga bar ku xareystay oo jeneraal gelqaad uu hogaamiye ka ahaa taliye guud la maartay uu ka ahaa galaan marka ciidamadii Soomaalida oo jabhad sheeganaya jabhada idinka ahaa eegada marka laba marna beentii ugu horeysay lagu heshiiyay anu marka hadii reer Muuse joogaanba beentii ugu horeysay Soomaali ku heshiisay ayna hee la isku wada raacay madaxweynaheeda iyo ka yaree suuqa socda iyo kii wuxuu ahaa Soomaali galbeed baa oo generaaladii iyo korneeladii magarasa magacooda la garanayay adoo dhaadii si dardaarmay waaga ka xulsan tahay ana warka dibadda aan filisaan dibadaan marka waxaan yani ciidanka idin soo galay marka idin soo biiray muxuu wanaag keenay muxuu dib keenay sidee xaaladdu marka ay noqoto halkee bay ka soo galeen ciidanka dir dhabo sidii loogu tala galay ayuu soo qabtay way laakiin waxa weeye ciidan markuu dagaal galo kolka ciidan tahay operation ka hal maalin dagaal markuu galo waxa weeye ciidanka in ciidan bedelo isaguna dhaawac gurasho iyo dib habeyn u galo oo kasba looga gooyay marka dib habeyntii ya ciidanka bedeli lahaa waliba hadaanan korka ka gooynin anaga ciidan hadaanan ciidan jabhada dusha ka dhigin oo jidka dadar xaq aad sabaan ka gooynin wax dush weeyeen mooyaan xaq dhulka ma jirin gamba laga dhigi lahaa waana loogu tala galay sabataashka meesha ka dhacay kaas oo ahaa marka waa isku mashquulay wad leedahay oo gudaha marka dawladda ay ahaayeen dawlad ma ahayn Soomaaliya kolkaas dawlad ka dhaxdaalan ay ahaayeen marka ruushkii waati ruushku ciidamada Soomaaliya isaga dhisay waati halka lagu kala tagay la isku eeday dawladii Soomaalida iyo magaranaysa inkastoo inuu hadhow ka sheekay doono ishagu marka ma had leedahay kolkan ugu horeysay ciidankan Soomaaliya soo galayba ciidankii bedeli lahaa oo kasba looga hakiyay si loo yiraahdo yaani ama loo eedayo galaal baa la jabiyay ama ciidanka soo waxaynin ila taagtiga maxamed yaa u sheegay warkii uu haystay beenta ay la siiyay حتى الصومالي ذا كوال قدي وحلا جاتي هير لي هذا قال عليك مقرأوه قاعوه كله and he was the only Somali دجال تجيبوها قرنيين وحقوا مقرنا سا فجأة القارئ ماشي كوري سنة أنا هذا اللي ما ورانا إياه يو في هذا ماشى كوكي شخص ذا سو كلا جلال إياه كم مقرنها إذا ككلا أردن كنا إياه ككلا هل ما لو أمر كذا اللي قبل سنة
was very 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 dangerous situation buu ahaa khatar ah Soomaalina aftiina waa inay ogeyn wadanka yaa ka mas'uulaha taliskii militariga maxamed siyaad barre fahanti maxamed siyaad ciidan soo diray ma ogeyn maxamed siyaad marka soo gal aniga leeyahay dambe ha gaadho horta halka ha ii gaadho ha inta markaasuu waana markuu soo bixi doono ee ku qalimi jiray cashiyaasiin la socotay deef ku qalimi jiray intuu yidhi markuu gudaha isaga lafahantiisu soo galay markaasaan soo waxay sameynaa warso on keliya aan halkaasaan joogaa aan kugu hunqaaco tis aan bigsada anigu soo qor ma qoriyaan isma dilayaan ku yidhi markaasuu yidhi orodoo maaragtay wakti kolka busy baan ahay wakti kale ila eego markaasa walaaqayaan waa ayaan daro dhulkan holaca ku jira esaas wax alla waxaad kala socota been iyo bagaran lagaa koriya ama aad u gubanaya wiiga sidaaga markaas ubax kacaanka oo allahuna xasa aburaas ubax bonder iyo iyaga dhaqaaqay moogtay marka waxaad ogaatay marka dib u soo noqday in sabotage ama maasha waxa weeye heer aanan situationkayga aanan u diri karin sirtayadii xag aan ka ilaalino maaragtay Soomaaliya si adigu looga faa'iideysan markaan hadalkaa idhi maxamed inta soo noqday oo gacantii soo qabtay meeshii igu soo celiyey oo gartay maaragtay nin weyn buu ahaay yani adeero laba mid yeel technicada iyo imanka waxaan khasaaray intiisa kale kala soo baxay meesha dad Soomaali ah oo dalka iyo dadka u naxay oo dameer leh u dirsa meesha habeenkii marka waa kii baxay ee gudaha galay oo ilaa iyo dhagaxbuur iyo jidka maray waa kii dhexda ku qalimi jiray caashe yaasin dhakhtaradii korneelada dhakhtarada ay ku caawin jirtay marka wadankan because dagaal la galay umuusan khasaarin erga aad weydiinaysay markaan soo noqdo laakiin dad ugu tala galay sabotage cad oo waxaan oo dhan kala leeyahay sabotage kareey baad leedahay oo waxaad leedahay ummadda Soomaaliyoodan oo wax aan laga sheekeyn karin aan safilayo in maaragtay qoraalada maaragtay ay ku soo bixi doonaan adiga la fahantaada ka sheekay qayb kamid ah waxaan filayaa dad badani inay imika ku daawanayaan qaar badanna laga yaabo inay sheekooyin kala haysteen qaarna ay ku arki karaanba oo korneelku miyo cadhooday tolo muxuu waxaanu naga qarinayay muu wax ka sheego dabcan adigoo kale sira badan baad ogtahay waxyaalo badan baad ogtahay wax la sheegay iyo waxaan la sheegi karin way jiraan sababaha ma garanaysaa ay waxaasi u dhaceen awgeed qayb saddexaad ayaan filayaa inaynu halkaa ka geli doono oo saddexaana ay noo noqon doonto lagama dhamaysan karo maalin iyo laba iyo barnaamij iyo laba toona marka qaybta labaad waxaan jeclahay Yuusufow inaynu intaa ku joojino oo qaybta saddexaadna aynu ugu diyaar garowno inaad ugu soo tala gasho markaa iyadoo inoo taagan ciidankii Jamhuuriyadda Soomaalidu ay lahayd oo iyaguna bilaabay in ay galaan dhulka Soomaalidu ay degto ee Ethiopia maxaa ka dhacay markaa intii taa ka dambeysay dhibaatooyinku halkay gaadheen jabhaddii iyo ciidankii maxaa kala gaadhay Yuusuf la fahantiisa sidaad ku xasuusto ciidankii waa laga soo kaxeeyay gudaha la keenay waliba waa la xidhay oo waa la xukumay sababaha iyo amuuraha ay tahay qaybta saddexaad ee barnaamijkan ayaynu kaga sheekay doonaa waxaan leeyahay Yuusuf oo intaana waad ku mahadsantahay nabadgelyo Colonel Yuusuf Maxamed Cabdi Barre ay aad Yuusuf Dheere aad